السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنودو waxa ay kamid tahay cayayaanada la yaab kale ee ku xusan Quraanka Kariimka waxaana loogu magacdaray suuradda An-Nahl. Shinidu waxa ay kamid tahay xayawaanada leh maamulka iyo boqortooyada isla markaasna samaysata cunto ay quutaan dadkuna waxa uu shinida ka sii martiyaa dheefta ay gacanteeda ku diyaarsato. Ilaahay waxa uu shinida kaga warramay suuratu An-Nahl aayadeeda 68 ilaa 69. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأوحى ربك إلى وحي إلى النحل شراب كده كترنا إلى النحل الشنيدة وأرجع الصورة الله قم قعدرة أن اتخذي بوحي هذا وحي الإلهام تسألها وكتشهي أن اتخذي من الجبال وحأت كسم يستالا لو وحي هذا يبورها حق هذا بيوتا قريه ومن الشجر birta xaggeedana ka samaysa guriyo iyo wa mimma yaarishuna waxa ay dhisayaan ama sameeyaan oo ah gaagurta taasha la yiraahdo atanilka beeraha laga sameeyo mashruuciyada shinida qabalada waaweyn ee loo dhigo malabka habka uu sameyn lahayd baa ilaahay uu markaas ku ilhaamiya waxa uu thumma kuli min kulli thamarat bil ordan wax ka soo cun fasluki waxad martaa subula rabbiki ilaahaga jidadka uu ku furay ذلولا يجوا شبسا أهلا معناه وضدي وامد كفرا يخرج من بطونها على وشي دي وحكى صباح هي الشراب شيء لعبه مختلف واسويدارتين كالدويه ألوانه مدبديس فيه شفاء للناس ضدكنا عافمات باوغسو جنبا إلهو إن في ذلك لآية آيات باوغسو جنبا إلهو دين صوت المامين لقوم يتفكرون هو فكرة ayadaasi waxay ka waramayaan in alle uu waxyooday shinida inay guriga ka dhigato buuraha dhirta iyo guriyaha dadka oo ay qudato dhamaan miraha markaana ay qaado jidadkiisa iyo inay caloosheeda ay ka soo baxaan cabitaan leh midabyo kala gedisan oo ay ku jirto daawo dadka jirooyinka ka bogsiisa taasna calaamad baa ugu sugan dadka fikiraya waxa hadda la ogaaday in shinidu marka ay hesho dhabaq ay ka soo qaadato waxyaabaha ay malabkeeda ku samaysato inay awood u leedahay inay gurigeeda ku soo noqoto iyada oo raacaysa dawyada ama jidadka uu alle u sahlay mushaaxidooda isla markaana ay awood u leedahay inay saaxiibadeeda kale ay u tilmaanto tusmada iyo meesha ay dhabaqa ka soo heshay shinida uu quraanka ka waramay waa dhadig iminkana waxaynu ognahay in ay leedahay boqorada dhadig oo u talisa waxyaabaha hadda aqoonta badan loo yeeshay waxa kamid ah in dawo uu malabku yahay cudurrada lagu daaweeyana waxa kamid ah xasaasiyadda ama allergy gaar ahaan tan ka dhalata faxalka dhirta ama afka qalad lagu yiraahdo pollen grains xasaasiyadaha ka dhasha faxalka geedaha waxa dawladda kamid ah in qofka qaba la siiyo malab laga sameeyay ubaxa geedka uu qofka bukaanka ahi xasaasiyadda ka qaaday iyo waliba xanuuno kale guud ahaan mahadhooyinka hiraya ee shinidu waxa ay kamid yihiin qisooyinka maguuraanka ee quraanka uu ka waramay xilliyo hore qoonta aadanuhuna ay hadda wax uga iftiimeen haddii aynu waxoogaas dul taagno macluumaadka ku saabsan shinida ee lagu ogaaday aqoonta sayniska waxaa ka mid ah kuwan soo socda indhaha shinida weligaa maysi weydiisay shinida imise indhood ayay leedahay shinidu waxa ay leedahay 5 indhood 2 ka mid ah 5taasi waa kuwo waaweyn oo ay isticmaasho aragtida fog iyo meesha iftiinku uu ku badan yahay sida marka ay qaraab tagayso 3 kalena waa kuwo yaryar oo afka qalad lagu yiraahdo oosili oo ay isticmaasho meelaha ilayska uu ku yaryahay sida marka ay ku jirto saxaarada iyo rugaha ay malabka ku farsamayso boqortooyada shinida waa maxay shaqada boqoradu waxay qabataa walxo ilaaliya wada jirka iyo wada shaqaynta shinida oo kala ah waxa ay soo deysaa walxo mahoraan u ah wada jirka iyo wada shaqaynta shinida 2 boqoradu waxa ay dhashaa guxaanta ama afka qalad la yiraahdo laying eggs xaqiiqo ahaan boqoradu waa warshad dhasha ilaa 1500 oo guxan maalintii waxa mucjiso ah in ay ogxaanta ay dhalayso marka culayskooda la isu geeyo ay ka miisaan weeyihiin boqorada qaybaha kale ee shinidu waxa ay aad u daneeyaan oo daryeelaan boqorada oo ay u qabtaan wax kasta oo ay u baahan tahay waxaana jira
shaqaale u gaara oo afka qalaad lagu yiraahdo attendance. shaqaalahan u gaarka boqoradu waa kuwa aad ugu muhiim ah hormoodkooda, maadaama oo aanay awoodin inay nafteeda quudiso iyo inay isnadiifsatoona. boqoradu ma rawaxdo mana nasato cimrigeeda, taa beddelkeeda waxay ku hawlan tahay dhalidda iyo wada xiriirinta shinnida qaybaheeda kale. boqoradu waxay leedahay mici ay u isticmaasho inay ku disho haddii boqorad kale ay soo gasho ama ay ka soo baxdo kooxdeeda. waxaan xus mudan in aanay laba boqoradood ku wada noolaan ama wada xukumin koox shinni ah. shinni kasta oo meel ku nooli waxa ay leedahay hal boqorad oo keliya. inta badan shinnida aan aragno waa nooca loo yaqaan shaqaalaha. sida boqoradda, shaqaaluhu dhammaan waa dhidig, laakiin hablahani ma laha xubno taran oo dhammaystiran, laakiin way ka gaaban yihiin boqoradda, way ka yaryar yihiin, ubuucdooduna way ka gaaban tahay tan boqorad. shaqaaluhu si la mid ah boqoradda waxa ay leeyihiin mici, waana ta ay wax ku qaniinaan xilliga barwaaqada. shaqaaluhu waxay noolaan karaan ilaa 6 toddobaad. haddaba xilliga ay abaartu jirto waxay noolaan karaan 4 ilaa 8 bilood. shinnida lab ama afka qalaad lagu yiraahdo drone, marka la barbar dhigo shinnida shaqaalaha, kuwaan labka ahi waa kuwa aad u tiro yar. xilliyada ay barwaaqadu jirto waxaa suurtagal ah inay gaaraan boqolaal keliya. muuqaal ahaan shinnida lab waa uu ka wan yahay shaqaalaha, sidaa awgeed waxaa macquul ah in dadka qaarkii ay u maleeyaan boqorad. indhaha shinnida lab waa kuwa aad uga waaweyn kuwa shaqaalaha, waxaanay u muuqdaan kuwa daboolaya madaxa oo dhan. shinnidan lab kama qayb qaataan soo guridda qaraabka, mana laha godadka lagu guro qaraabka ee loo yaqaan pollen baskets. sidoo kale ma caawiyaan dhisidda awlalka, mana laha qanjirada soo daaya xabagta. waa rag aan difaacin reerka ilaa ninka uga dhigay, waayo ma laha micida ay shinnidu u adeegsato qaniiniyada iyo caabiga shisheeyaha. shaqada keliya ee ay qabtaan waa inay u galmoodaan boqoradda bikrada ah. kulankan dhex mara shinnida lab iyo boqoradda waxa uu ka dhacaa saxaarada dibaddeeda. boqoraddu waxa ay u duushaa hawada 200 ilaa 300 oo gommadood. halkaas ayaanu kaga daba tagaa oo ay ku kulmaan. nasiib daraduse waxay tahay shinnida lab markuu boqoradda la kulmo waa uu dhintaa, waayo waxa boqoradda ku hadha xubinta taranka ee shinnida lab. sidaa daraaddeed dadka qaar ayaa yidhaahda labka shinnidu waxa uu ka mid yahay lababka adduunka ugu ayaanka daran. intaa waxaa dheer xilliga ay abaartu soo gelayso hablaha shaqaalaha ahi waxay dibadda u saaraan shinnida lab ama afka qalaad lagu yiraahdo droonka. taasina waxay keentaa inay gaajo u dhintaan. waxaynu hore u soo sheegnay in aanu labka shinnidu cunto soo guran diyaarsanna ee uu ku xidhan yahay hablahani hawsha ay qabtaan. muuqaalka intaanu ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.